weriye qoomuluudnimo lagu halaagay. Inuu qaniisiinta u doodo ayuu qadar u tegay, balse mowtul qafle ayaa dilay digniin hore la'aanteed, wuxuuna ku dhex baktiyay garoonka xilli uu tebinayay ciyaartii Argentina iyo Netherland. qaatumo xumo, qaniisnimo iyo qurun oo dhan ayuu la galbaday. Reer galbeedkuna waxay qadariyiinta ku eedeeyeen inay sumeeyeen suxufi baaliqi ahaa oo laga jeclaa USA. isagoo qoslaya, aanay ka qasnayn oo caafimaad qaba ayaa cid ugu wardambeysay, balse malakul mowdka ayaa ku soo xaadiray saacadiisa. waxaana la arkay kiyo ku rafanaya kursigii uu ciyaarta ka daawanayay, ilaa dhakhaatiirtu ay xaalkiisa waxba ka qaban waayeen, naftuna ay ka baxday indhahooda shana. ninkan oo horay u diiday inuu iska bixiyo funaanad uu ku xardhan yahay calanka makhnuudiinta ee qaansan roobaada, ayaa wejigabax kala kulmay dowladda Qatar oo xabsi ku haysay saacado kooban, shaqadana ka joojisay muddo hal maalina. reer galbeedka oo shaydaanku u qurxiyay qoomuluudnimada ayaa gaaray heer ay Qatar ku tilmaamaan bulsho xag jira oo haba yaraatee furfurnaansho xagga dhaqanka aan lahayn, isla weyne ay ku jirto kuna xadgudba xuquuqda aadamaha. laakiin waxay ka ilduufeen in boqortooyada Qatar aysan cidina ka marin habaabin karin ku dhaqanka jidka Ilaahay jideeyay ee ku dhaqanka shareecada Islaamka. qoomuluudnimadu wuxuu ahaa qorshe la doonayay in loo soo waarido muslimiinta Qatar, balse reer galbeedka imtixaan cibaare adduun ugu filan ayaa la tusay markii la mamnuucay calanka dadka isku jinsiga ee isu galmooda. taa waxaa xigtay in jilba culustii Jarmalka, Netherland, Spain iyo USA oo aad ugu ololeynayay dhaqan xumada khaniisiinta, iyagoo isla weyn oo ku haminaya inay guuleystaan, si fool xun looga reebay koobka adduunka. dunida reer galbeedka waxaa si weyn looga hadal hayaa suxufi Amerikaana oo ku dhex geeriyooday garoonka Lusail oo ku yaal dalka Qatar, kaasoo mowtul fajri ama mowtul qafle ku soo xaadiray, isagoo u dagaalamaya danaha dadka isku jinsiga ee isu galmooda. si aan leexleexad lahayn, waxa eed la xiriirta dhimashada ninkan dusha looga saaray dowladda Qatar oo laf dhuun gashay ku noqotay ilmaha shayaadiinta ee doonaya inay fisqi iyo xumaan u soo waaridaan muslimiinta ku nool jasiiradda Carabta. Maraykanku si ay u fidiyaan qaniisnimada waxay adeegsadeen suxufiga caanka ee Green Wall oo ka mid ah dadka isku jinsiga ee isu galmooda. inay guuleystaan ha joogaan halaag ayaa ku dhacay Ameerikaanka, waxaana geeriyooday wakiilkoodii fisqiga mondiyaalka dunida ee dalka Qatar. wariyaha Maraykanka ee lagu magacaabo Green Wall ayaa geeriyooday isagoo ka waramaya ciyaaraha adduunka 2022 ee ka socda dalka Qatar, sida ku cad muuqaal uu soo duubay walaalkii oo fiidnimadii Jimcaha la soo dhigay barta Instagram. Green Wall oo 48 sano jir ah ayaa u geeriyooday xanuun degdeg ah oo ku soo booday, waxaana walaalkii Eric Well oo qudhiisu ka mid ah ragga wax ka doona ayaa warbaahinta u sheegay inuu rumaysan yahay in walaalkii la dilay. waxaana xusid mudan in suxufiga Green Well la xiray ciyaartii heerka guruubyada ee u dhaxaysay USA iyo Wales kadib markii uu soo xirtay funaanada calanka qaansan roobaadka ee qaniisiintu ay isku aqoonsato. oo ka hadlayay geerida walaalkii ayaa yiri, aniga ayaa sabab u ahaa in walaalkay uu soo xirto funaanad uu ku xardhan yahay calanka One Love si koobka adduunka loogu taageero danaha dadka isku jinsiga ee isu galmooda. anigu marna ma rumaysanayo in walaalkay uu si dabiici ah u dhintay, wuu caafimaad qabay waana shaqaysanayay. waxa aan aaminsanahay in la dilay oo la shirqoolay sabab la xiriirta nacaybka loo qabo dadka isku jinsiga ee isu galmooda oo uu u dagaalamayay inay helaan xaquuq la mid ah tan bulshooyinka kale. dowladda Qatar oo iska fogeysay eedeynta ka imaanaysa Ameerikaanka ayaa sheegtay in qoraaga u dhashay dalka Maraykanka ee Green Well uu xanuun degdeg ah u dhintay Jimcihii isagoo ka waramaya ciyaaraha adduunka ee ka socda dalka Qatar. suxufiga qaatumo xumada ku dhintay ee Green Well ayaa kubadda cagta Maraykanka iyo tan adduunkaba u soo tabiya warbaahinta Substack, CBS Sports iyo NBC News. suxufiyiin ay wada shaqeynayeen oo Amerikaan oo ag fadhiyay ayaa sheegay in Green Well uu dib uga dhacay kursigii ku yiilay garoonka Lusail rubco dhamaadka ciyaartii Netherland iyo Argentina u dhaxaysay. shaqaalaha gurmadka degdega ayaana si dhaqso ah uga jawaabay, balse laguma guuleysan in la badbaadiyo suxufiga reer Maraykan. wakiilkiisa Tim Scannell ayaa warbaahinta New York Times u sheegay in Green Well uu galay murugo ba'an daqiiqadihii ugu dambeeyay ee rubco dhamaadka ciyaarta. Green Wall wuxuu ku biiray warbaahinta Sport Illustrated sanadii 1996
wuxuuna ka soo shaqeeyay joornaalo badan oo Mareykanka laga leeyahay ilaa 2020kii. dowladda Mareykanku waxa ay ku sheegtay rugcada iyo halyey hormuud u ahaa qorayaasha kubadda cagta dalkeeda, kaasoo muddo tabinayay koobabkii adduunka ee ragga iyo dumarka, ciyaaraha ugu xiisaha badan kubadda cagta Yurub iyo kobaca isboortiska ee dalka Mareykanka. Bishaaro Soomaaliyey, tani waa fursadii aad faqriga iyo busaaradda kaga bixi lahayd. haddaad tahay qurbajoog qaata cayra ku filayn, haddii deymo ku daashaday ay dhiigga ka reebeen, iyo kol haddaad shaqo la'aan Afrika ku tahay, waxaan ku haynaa fursadaad kumanaan kun oo dollar ku tabcan karto. kaalay noqon maalqabeen muddo kooban ku hela lacag xalaala oon xad lahayn. shirkadda caalamiga ee Forever Living oo laga leeyahay waddanka Mareykanka waxay idin haysaa fursad ganacsi oo dahabi ah. haddii aad joogto dalkeena hooyo ee Soomaaliya, ganacsigan waxa ku bilaabi kartaa lacag ka yar $398 Mareykanka. kol haddaad joogto wadamada qurbahana waxaad ku bilaabi kartaa dhaqaale aad u yar. haddaba la xiriir Manager Cusmaan oo ah ganacsade Soomaaliya oo 4 sano gudahood ku noqday hantiilaha ugu jeebka buuran shirkadda ganacsiga ee Forever Living. Manager Cusmaan wuxuu ka caawin doonaa sidii aad hadafkaaga iyo riyadaada ugu rumayn lahayd. shirkadda Forever Living oo dad badan baraare iyo barwaaqo u horseeday. haddaba kala xiriir WhatsApp number +1 41 65 79 80 53.